الله الرحمن الرحيم ورصحافدed beelweynta Cabdiraxiin Salebaan maanta ay taariikhdu tahay 25 bisha December 2023 waxa soo gabagaboobay kulamo ay lahaayeen ismada dhaqanka nabadoonnada waxgaradka beelweynta Cabdiraxiin Salebaan kulamadaas oo socday muddo 3 cisho ah waxaana looga hadlayay midnimada reerka arrimaha siyaasadda iyo ammaanka guud ee dalka wada tashiyo iyo gorfayn kadib tolku waxa uu isku raacay qodobadan hoos ku qoran 1 tolku waxa uu bogaadinayaa go'aamadii masiiriga ahaa oo ay gaareen garaadada SSC Khaatumo kuwaas oo ka tarjumayay baahida shacabka reer SSC Khaatumo iyo jiritaanka maamulka SSC qodobka labaad beeshu waxay ku baaqaysaa ilaalinta xasiloonida iyo midnimada Puntland xilligan xasaasiga ah number 3 beeshu waxay soo dhaweynaysaa baaqyadii kala duwanaa ee ismada Puntland waxaana la isla qaatay in loo baahan yahay shirweyne degdeg ah si arrimaha Puntland wax la isaga weydiiyo qodobka afraad beeshu waxa ay u taagan tahay helitaanka xaqeeda dastuuriga ah ee golayaasha kala duwan ee dawladda Puntland wabillahi tawfiiq